halkan aanu joognaa waxay in yar u jirtaa deegaanka Dacawley ee dagaalku ka socdo waxaanu dhahaya ku soo aragnay xasuuqa ba'an ee uu geystay Mustafa Cajar shacabkii uu maamulayay cashuurtana ka qaaday xasuuqan ayaa lagu miisaami karaa xasuuqii Bashar al-Assad uu dadkiisa u geystay iyo kii Siyaad Barre uu geystay shacabkii gobolada waqooyiga ee Soomaaliland ya xasuuqii isaga madaxweynihii ka horeeyay dawladda deegaanka in ili u geystay dadkiisa dadkii jaamacad Dubad lagu laayay dad ka badan ayaa maanta uu ku laayay Mustafa Cajar deegaanka Dacawley waxaan ugu tagnay cisbitaalada ku yaala dawladda deegaanka magaalooyinka Dacawley ka soo sokeeya ee laanqeyrtu ay ku jirto meydad caruur haween dad waaweyn oo dhammaantood meydadkoodu madaxu ku xanuunayo qalbiguna uu ku ooyayo arrintan ayaa u muuqata xasuuq qorshaysan oo laga soo shaqeeyay kaasi oo maalmo laga shaqeynayay in dadkan isirsifayn iyo xasuuq ba'an loo geysto oo ku saabsan sinjiyada iyo qabiilka ay ka soo jiraan dadkii loo laynayo waana tii Siyaad Barre uu xasuuqay dadkii gobolada waqooyiga Soomaaliya ee haddana Somaliland tii mid lamid ah ayaa halkan ka dhacay